baraf xoogan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay si isdaba joog ah uga dhacayay guud ahaanba qaaradan Yurub. wadamada uu barafkaasi aafeeyay ayaa waxaa ka mid ah wadankan Ingiriiska oo toddobaadyadii ugu dambeeyay oo marnaba uusan istaagin. intii uu barafkaasi dhacayay ayaa waxa ugu xumeyd maantay oo aeroboorada wadooyinka waaweyn tareemada iyo waliba isbitaaladaba la xiray in ku dhow 10,000 oo iskuulna albaabada loo laabay. boqolkiiba 50 dadka shaqeeya ayaan shaqadoodii aadin. barafka ayaa wuxuu dhulka ka sareeyaa in ka badan 30 sentimitir iyadoo qabowguna uu gaari doono -7 ama -8. khubarada cimilada faaleeya ayaa sheegay in ay isbuucan soo socda oo dhan uu socon doono barafku. haddaba waxaanu la kulanay Maxamed Cali Bilaal oo loo yaqaan Ayax oo u socday Morocco balse ay u suurtagali weyday duulimaadkiisii. كم كوعين كان نقضي ولا كسل قري إذا حلا إلى شلي وحن كحنبنا إيربورت كاتويك تبدنا كنسل بالا كنسل قري ديار ذي أردن تاسوايان وقصوا وصفر كي وقلنا قاعد barafkan ku habsaday wadankan Ingiriiska ayay khubarada cimilada qiimaysa ay sheegeen in uusan ku ekaan doonin maalmahan oo kaliya balse waxay filayaan in uu marar badan iska soo daba noqon doono. wasaaradda gaadiidka wadankan ayaa iyana maray la talinaysay dadweynaha waxay sheegtay in ay khatarta baabuurtu aad u fara badan tahay waxayna dadweynaha kula talisay in ay yareeyaan wadista gaarida. taasina waxay sababtay in dad badani ay ka baaqdaan shaqadoodii maadaama ay khatartu badan tahay. gaadiidka dadweynaha qaada basaska tareemada iyo waliba goobihii kale ay dadweynuhu ka raaci jireen gawaarida ayaa iyana bandow lagu soo rogay. عبد الناصر عرو ETN TV لندن.